السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن عاد فتح مرة واحدة دين له سو دواعة إن شاء الله بإذن الله دي لا إرادة حواية أنا ما تقيت سدحات إن شاء الله إن حوايا أنا كتعطابنا وحياة أبو مهم سنة ليضاي سريدنا وعلو بوي يا تركي كرون فإذا إنك ليضاي iyo qaabka qofka faa'iidada uu heli karo iyo sida uu marsanayo qaabka uu isticmaalayo intaas oo dhan saan hore idinkugu sheegay muhiimadda waxaa waaye qofka bini aadamka sidiisa inuu go-aan leeyahay go-aankiisana ay ka go-an tahay walay wajiga ujeediin madoogana arkaysiin ma lahaynani waxaan dadka qaar oo dambaroolka isticmaalayo sideedoo kale ma aqaan inaysaan u madoobaanayso ay arkeen laakiin ani madowgan waxaan dareemayaa maasha allah in wax badan ay isbedeleen inta awal hal xabaa ku taalo oo khafiif ah laakiin hadda saan markaan dhaho qofka arki karo waa arkaya tin la xiiray oo soo baxaysa camal waa intana madowga wuxuu soo noqday xaad laano meeshaan awal tina ku dambeysay oo khafiif ahayd xoogaa maalin dhaweed waa jaray hadda tin la xiiro oo soo baxaysa camal waaye si u kala badan yihiin intana waxa waaye madowgaas aa ujeediin marka hore intuu joogo saxayga ku haya tanna intay joogta intaas ka sokayso oo dhan walaa intaan ku dar halaan soo aad way go'i rabta intaan wayba go'day intaana way go'i rabta ebre ahayd hadda marka maasha allah inta waaba soo baxday intana waa 2 week way hadda waxaysan ugu soo madoobaatay insha allah 2 week kale waa arkeynaa 3 month markii la gaarno waa arkeynaa wax iska bedelo hadii ila ira so I hope insha allah ilaa inta waa keeni karaa dambaroolka ilaa intana waa keeni karaa dambaroolka laano tinteeda intay ku egtahay laakiin haduu fool shareer camal aan naqanaa so marka kistaan yariisto salaha camale inay banaanaato xoogaa wejiga qurxinaysaa saasaan u reebay meeshaan haddaan rabaa inaan ku bilaabo maanta iyo meeshaan laano labada meel tinta way ka dhamaanaysaa gadaal u noqonaysaa ilaa inta camal ay ku joogtaa wal so marka insha allah maanta ku bilaabaya meeshaan intana ma xoogaa waaba ku bilaabay way madowdahay laakiin iyadana waa ku daraa so marka si uu iskula socdo meeshaas intaas ay iskula xirnaato hadii ilaa yira meeshaan nagala soco marka muhiimadda waxay tahay marka mar walbana aan ku celceliyo faa'iidada uu leeyahay dambaroolka qofka hadduusan dambarool rabin waa isticmaali karaa maasha allah wayna u fiican tahay laakiin qof walba horta isticmaalaya hal mid aan rabaa aan boqolkiiba 200 aan idinkaga ta'kiidiyo qofka markuu tin badan leeyahay iyo markuu tintiisa jiro eber ka dhigo waxaa mar walba result fiican markuu qofka tinta oo dhameeyo laano tinta markaa dhameysid dambaroolkana si fiican oo madax u qabanaa saliidana si fiican ay madax u gaaraysaa meesha aragtid laakiin marka aadan sameynin sorry shaahay gala malaynaa laakiin dambaroolka markay tin badan leedahay uu gaaraa madaxa laakiin sidoo hadda uu qabanayo hadda saas markaan dhaho inta gano uu leeyahay oo dhan sida hadda fartaas uu qabanayo ma jeedaa soo hadda fartaas uu qabanayo kale uu qabanayo farteeda hadda qofka cabsanayo isdhahay dambaroolka dhaawac dadku geystaa farteeda waa tahay yani farteeda hadda ma duleelinayo wax dhib ma geysanayo calaamad uu sameynaa bas girgire yariis uu yeelo bas wax dhib ma geysanayo markaa saas ugu riixo girgire yariis uu yeelo intana sidoo kale waa markaan ku riixo aan saas dhaho laano inuu meesha uu furaayo oo dulduleelinayo waa dareemaa haddana sometime ay tahay waxaan dareemayaa inuu meesha xuub ka qaadayo oo maqaar uu ka fiiqayo maqaarka uu fiiqayo sabab muxuu u fiiqayaa waa meeshii tinta ay ka dhamaatay oo daboolantay oo xuub fuulay xuubkaas haddoosan ka fiiqmin meesha marka ama uu ka degin ilihii ay lahayd madaxa uu lahaa oo caadiga ah normalka ah
tinta intay ka soo baxdaa sideedaba leanno meel walba oo tin ka soo baxaysa ilay leedahay isha maxaa daboolay in madaxa uu dhammaaday tinta ay go'day kadibna isha ay daboolantay mise waa isku diidanna ujeedaa meeshan hadda hore saan awal qubkaas magu kacayn ujeedaa waxaas ka kacooyo oo cadkaha waa xuub waay xuubkaas awal maysan lahayn meeshaas laakiin hadda maxaa keenay inay yeelato wax kale ma keenin ninkan hadda aan ku wadaa keenay leanna meesha hadda idiin sheegaya inaan ku bilaabayo waatana meeshaan iyadan insha allah 2 week kadib waan sugaynaa meeshaan caddaawa haddii la yiraahdo 2 week ama 3 week ama 4 week kadib iyadan waa arkaynaa say noqoto leanna maana arkaynin aniga laakiin shalay iyo daraadan si fiican u dareemay in meeshaan tinta ay kasii dhammaanayso waa fahmaysa sooma marka qofka walaalkaa waxa aad ku dhaantid mar walba waa la fahansiiyaa waana si fiican looga jahil bixiyaa aniga maanta nambaroolkan iyo daawadan bilaabaya saliidda iyo maanta alxamdulilah كل شيء بقدرة الله واي إلهي أمر كيسة كل عام مر والبا لكن قف والبا دلال كيسنة ما يشوق جيوليه dad badan aan hadda markaa baalkan isticmaalayo madaxayga markay arkaan dadka qaarkood markay sarxaan soo madoobaad arkaan madaxa iska gubtay dab maa ku qabtay nambarol waayana leedahay beenaa noo sheegay madaxa daba isaga dhijisay madaxa wax kala isaga samaysay maa noo sheegtid bar maalin walba dadaa waxay dhaho laakiin hadalkooda waxba kama soo qaadaani maxaa yeelay markaa rabtid adiga inaad hadaf gaartid ama mool aa gaartid ama wax inaad samaysid rabtid mar walba qofku mucaaradaa ma weynaysid soo marka mucaaradkaaga mar walba dhiirigelinay kuu tahay qof walba wax kuu sheego wuxuu ku tusaaya oo keliya waxaa samaynaysa inay wax wanaagsan yihiin weligaana mid ogow wax walbaa samaynaysid haddii aadan yeelanin qof waxaas mucaarado waxa aad samaynaysa inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay maba kala ogaan kartid leanna ummadda hadday ku wada taageertay ku dhahaan waxaan aad samaynaysid saas waaye waxaan samaynaysid saas waaye qof walba oo ku ammaano leanna waxaa ogaataa waxaa samaynaysid waxbaa ka qaldan laakiin markaa dhaliil yeelatid dhaliisha it means macnaheeda waxay tahay dhiirigelin qofkan wuu ku dhiirigelinaya wuxuu kugu dhiirigelinaya waxa aad samaynaysid waxaa jira dad badan oo raba hadda saliidan ama dambaroolkan si fiican inay u isticmaalaan balse nafsiyan ahaan ka cabsanaya oo isdhahay dad waa arkay aniga baashaan waan iska daysid saaxiibo beri kansar ay keeneen war kansar ilaaha keeno mafahant cudur sidiisaba yaa keeno qofka waxaa lagu dhahaa qofkaa muumin waaya lagu dhahaa wax walba oo ilaahay keeno iimaankay ka mid tahay oo arkaanta iimaanka ka mid tahay wax walba oo qadar ilaahay ku yimaado shar iyo khayrba in aaminsan tahay inuu ilaahay keeno soo marka cudur ma iska yimaado cudur ilaaha keeno daawadiisan ilaaha keeno laakiin waxaan adiga aad samaynaysid waa teknolojiyadana mar walba waxay ku tustaa wixii hormaray leanno waxaan aaminsanahay 12 sano ka hor markaa Egypt joogay waxaa jira yaraa kubadda isla ciyaari jirnay maasha allah oo xilligaas tin beertay maasha allah markaas ma jirin tin la abuuraayo hadda sidii Turkiga oo kale in la tago duleelada lagu furfuraayo ma jirin waa tin operation lagu sameynayo ee haddana saas ay tahay wuu samaystay maanta wuu ka caafimaad badan yahay waayo waa qof nool wuu joogaa alxamdulilah waxba kama haleysno maraykankoo dhinac ka joogaa wuu xamaashaa wax ka haleysan ma laha turkiga sidii kale markii lasoo abuurinayo dad badanaa ka dhahay allah tan raganimadii wax dhinta tan saan waaye qofku markuu tago bes waaye saan waaye hadda daawadan saas aa la dhahay saliid iska dhaafa raganimadii wax dhintaa waxaana ogaaday wax walba oo la keeno horta Soomaali inay sideedaba marka koo meesha xun la jecel yihiin wax ka sheegaan marka warka waa idinku dheereey dambaroolkayga way dhammaan aniga maasha allah hadda saliideedi iyo aniga waxaan kale helno markaad leenahay alla macaan badanaa baasha markaasaan ugu rugaysta ya
afil wallahi waxaan dareemaa balbal aan caadi ahayn caadi. ma isleedahay marka qof aan dambaroolka madinin sida hadda aniga ii balbalayso madaxu balbalaa may. hadda meeshaan fiir haddayd xoogaa zaa'idaan u roonaaday dambaroolka kulli qofkii arkaya haddayd zaa'id aan u roonaaday. hadda xanfafkeeda wuu ka xanfaf badan yahay ma dhihi kara laanno qub badan oo ka qaaday ma xuub badan oo ka qaaday wax badan oo ku sameeyey. shit marka walaalahay Soomaaliyeed inta samaha jecel maamaha oo baryahan suuqa ku jirtayna way jirtaa oo aniga iyo group kale aan isku furjeynayne wax kalena ma ahan. waxaan dhahnay gabdhaha waxay dhihi jireen doqon iyo cawaa madow. inkastoo kalarkeena maasha allah gabdheena ilaahay noo barakeeyo kalarkooda maasha allah ay haddana sii caddeeyaan. doqon iyo cawaa madow ayaga doqonnimo kamaysan ahayne bas laakiin inay qurux raadinayaan ay ka sheegayeen. marka annaga hadda dabaal iyo midaan beesadiisa isku quurin bidaar leh waa marka sheeka saasay marweysaa. dabaal iyo midaan beesadiisa isku quurin bidaar leh saa marka beesadaada ha ka dhimaniyo. turkigaba 1500 euro 2000 euro 3000 euro waa ku aadi lahayd. baashaan hadee u badataa cirka aada meesha ugu badan ay ugu qaalisantaha waa $50 intii meelaha kalena way ka raqiisantaha. marka $50 oo bil madaxaaga marisay ama 3 week ama laba dhalo $100 inaa ka bixisay bil iyo bar ama 2 bilood aa isticmaashay taqriiban waxaa makaa dhibayso oo berina tintaada kugu soo noqonayso. meesha mujeedaad haddayd maxaa idin dhahay anoo qolofaa ka kacay soo idinma dhahin mujeeda hadda fiir waa xuub waxaas meesha ka fiiqmay hadda waa xuub kisti yareed haddayd ugu roonaaday waaye mujeedaa. waxaa ka kacoy waa xuub meel walbo saas xuubka ugu kaco oo wasaqda madow ay ka kacdane waxaa kasoo baxayso tin hadda soo baxayso camal xaadi marag oo madow oo tin hadda soo dhalanayso madaxa markii la xiiro tin qodxa ma kasoo baxdo sida camal waaye qodxiya kasoo baxay meel kastoo xuub ka dhaco. inta hadda xaadi noqotay oo caadi marka maanta qaybteena saddexaad saasay noogu eg tahay. waa kana idinkaa isku ognahay hala dadaalo in walbo madaxaaga wax kuu dhaama maleh ay dheen balantayna waa new relation iyo dambarool haddaa ka tagtid tan ha ka tegin. tan ka tag kan isticmaal maku dhahay laakiin kan haddaa ka tagtid tan waa isticmaali kartaa. haddaa labadooda isku sii isticmaashidne maxaa lihi jiri macjug waaye. marka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يباشالا بلنتين waa hamoogaan turki karoon hamoogaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى